waayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa fideogan yar inaan kaga gaadhsiino. Kole habeenka dhan waxaan dhiganaa fishin qaybo ka mid a. Marka waxaan ardayda ay arkeen qaabka fishinku u dhaco, sida loo sameeyaa fishinka. Marka waxaan idinku waan idin soo duubaya. Waxaan arkaynay qofku inuu Facebook oo kale ama Instagram oo kale ama Twitter oo kale intuu password username geliyo deedna passwordka usernamekii ay kusoo dhacayaan marka fishinka la sameynayo. Marka program ahaan qaabkani sidee bay u dhacayaan kood ahaan marka la eego. Marka imika tusaale kale waxaan doonaa marka qaabkaas bal inaan sameyno capture-ka. Qofku ma sameysan karaa phishing site oo isagu u leeyahay madax bannaan ma sameysan karaa. waxyaabahaas oo dhan baan doonaynaa inaan fideogan yar kaga hadalno. Marka ugu horreyn halkan Facebook baa yaalla sida caadiga waa official site-kii. xaggana waxaa yaalla website file manager-kiisii oo online ah. Marka waxaan doonayaa inaan sameyno bal inaan sameyno waxaan isay u dhacayaan ayaan doonaa inaan isla fahno. Halkan waxaa yaalla marka VS Code-keenii. Marka waxaan doonayaa bal inaan sameyno dhowr file. Iminka tusaale kale waxaan sameynaynaa file loo yaqaano index.html. waxaan doonaynaa marka tusaale kale xaggan waxaa yaalla Facebook-gii baa yaalla. haddaan marka halkan right click siiyo oo aan idhaahdo view page source, waxay soo baxaya koodkiisan bay soo baxaya ama source-ka page-kan. marka halkan waxaa noo yaalla dee halkii la gelinayay usernameka passwordka iyo buttonadii waxyaabahaas oo dhan. marka haddaan idhaahdo highlight ama control A aan idhaahdo deedna aan soo copy gareeyo aan VS Code-keena indexkaas aan soo dhex dhigo. waxaan sameynaynaa waxaan leeyahay control F baan leeyahay. marka waxaan doonayaa methodkaas methodka inaan bedelaan doonayaa oo methodka ayaan doonayaa inaan bedelno. marka waxa weeye halka xaggan usernameka iyo passwordka qofku markuu click yiraahdo xaggii aadayaan. marka hadda iminkan waa kii sharciga ahaa oo ka sharciga waxay aadayaan xaggii serverka. markaas serverkaas soo jawaabaya haddii sax yihiin iyo haddii khaldan yihiin. marka halkan ugu horeysa aan bedelaynaa waxa weeye halkan ay ku taalla ID oo ID-gaasi wuxuu sameynayaa datadan ayuu encrypt ka dhigayaa. sida aawadeed inta yar ee labada qoys u dhaxaysa ayaan meesha ka saaraynaa. intaan markaan sameyno haddaan dib u soo baxno waan save baan leeyahay. waxaan sameynaynaa file kale oo ah post.php baan leenahay isaga. waayahay intaynaan fileka php-ga dhisin waxaan sameyn doonaa methodkeena. waxaan ka dhigi doonaa actionka qaybta actionka ayaa waxaan sameynaynaa inuu informationka soo gala methodka ee hadhow markaan post global variablekan postiga aynu soo dhiibno datada halkay ku dhici doonto waa inaan postiga noqdaa oo markaa fileka postigaas ayaan dib u dhisi doonaa isaga. marka waxaan baabiinayaa halkan action ay ku taalo waa tan methodkeedina waa kan inta u dhaxaysa oo inta yar qowsas ku jirta ilaa log inka laga gaarayo ayaan meesha ka saarayaa. deedna waxaan ku qoraynaa maxay post.php-gaas aan iminka dhisanay ayaan leenahay xaggaa soo geli. intaan markaan sameyno waxaan is leenahay save ayaan leenahay waan save garaynaynaa. kadib waxaan ku noqonaynaa php filekeenii. markaa sida caadiga ahayd waxaan sameynaynaa kan ayaan dhisaynaa. waayahay ugu horreyn waxaan sameynaynaa tusaale kale waxaynu sameynaynaa kii furayey maxay fileka oo variablekii inoo sameynayno fileka inoo furmo. marka ugu horreyn waxaan leeyahay variablekii waxaan leeyahay file xulamidii baan leeyahay.
marka functionkani f open baan furayaa deedna waxaan leeyahay faylka loo yaqaano tusaale kale waxaan leeyahay log waxaa tahdaa password txt faylkaas ii fur baan leeyahay haddii uu jiro yani fayl wuxuu sameynaya marka haddii uu jirona wuu furayaa haddii kalena wuu sameynayaa oo create weeye wuu sameynayaa waayahay kadib waxaan sameynaynaa maxay waxaan sameynaynaa for each kii waan sameynaynaa waxaan leeyahay for each deedna waxaan qorayaa maxay global variablekeeni postiga so waxaan leeyahay post marka waxyaabaha lagu soo qorayo postiga variable waxaan leenahay wadkan sharxi doona dib baan u ka yar gaargaarsiinaa waqtiga xilli dambe waayahay intaan markaan furno waxaan sameyn doonaa right baan leeyahay waxaan leeyahay marka file kan wuxuu noo sameynayaa markaa in qoraalkii markaa meesha soo galgalay inuu space noogu sameeyo oo usernamekii passwordkii noo habeeyo intaan baan ku garanayaa right baan leeyahay marka kan waxaan ka dhigayaa valuegaas kale inoo soo qabo waayahay right-ka haddaan waxaan doonayno qoraalka right-ka inaan sameyno space marka waxaan leeyahay r waayahay waxaan sidoo kale sameynaynaa bal intaan isoo koobi karaa shakina fkuliska ayaan isticmaalaynaa waxaan leenahay faylkan waaxid waayahay waxaan sameynaynaa markaa faylkeenii sameynayay tarooga sameynaya headerka marka waxaan doonaynaa inuu linkiga redirect isu sameeyo oo markaa uu tuuro linkiga waxaan leeyahay location ha sameysan locationka ha sameysan waxaan leeyahay https facebook.com kadibna waxaan leeyahay exit sidaan leeyahay marka waan save garaynayaa waayahay marka haddaan in yaro si guud aan yar dul marno iminka qofku markuu soo geliyo xaggan tusaale kale passwordkii deedna waxna emailkii iyo usernamekii passwordka soo geliyay uu log in idhaahdo functionkeena xaggan markaa wuxuu sameynaya marka filekan oo kale wuxuu furayaa filekan yaraa meeshan ku qornay
hadduu jirana markaa wuu furayaa, haddii kalena wuu samaynayaa. deedna global variablekan postiga wixii markaa buttonka marka kelig loo siiyo daatada usernamekii passwordka soo gala ayaa wuxuu samaynayaa inuu filekan ku rido. intaasuu qabanayaa. marka ugu dambeyn fileka wuxuu samaynayaa xaggan wuxuu ku tuuraya redirect inuu qofku deedna facebookii saxda gala. marka wuxuu samaynaya wax kala maaha, phishing wax kala maaha, waxa weeye qofka waa la khalkhalinaya, deedna daatada inta lagala haro ayaa qofku ma dareemayo, si aanu dareeminba waxaan oo dhan u dhacayaan. marka kan waxaan leenahay waxa weeye text وياهي Facebook الصح ذا ayuu isku tuuraya kaasina. وياهي hadda waxaan sameynaa waan tijaabinaynaa. marka xaggan exit waxaan leeyahay kan waxaa tirahdaa direct. way let me check the code. وياهي posted and variable xaggan the values ka soo gala. وياهي halkan ayaad moodaa in wax naga maqan yihiin. halkaas ay wax naga maqan yihiin. waxaan leeyahay right. deedna wax naga maqan functionkeena variable ayaa inaga maqan. waayahay way waan saf garaynayaa. marka waxaad samayn kartaan idinku waxaad ku tijaabin kartaa dad doontaan saamta ku tijaabiya oo dee halkan hosting yar ku sameeya. marka aniga halkan session baa iga furan, I don't know inuu iga expire garoobay ma garanayo, laakiin weli wuu ii taagan yahay. websitekaas baan isticmaalaya file managerkiisa. marka haddaan furo waxba kuma jiraan oo waxba kuma host garaysna. marka waxaan samaynayaa labadan file baan upload garaynayaa waan qaadaya deedna waan tijaabinaynaa oo aan tijaabino. marka waxaan leeyahay upload deedna file baan leeyahay. marka waa kan fb fishing waa kan fb fishing aynu hubino weliba xaggan waa kaas fb fishing waa kaas. marka labada file baan ayaan soo gelinaynaa. marka intaas sameyno waxaan sameynayaa websitekan baan toos u tegayaa. websiteka waxaa leeyahaa cafe.online baa leeyahaa. marka dee kan aniga ale waad arkaysaan oo wuu iska soo baxayaa markiiba. marka halkaasuma indhaha ku haya labada file baa inoo yaala. waxaan sameynaynaa markaa xagga ma wax gelinaynaa tusaalo kale samlag 1 2 3 4 5 6 login baan leeyahay. marka koodkeena hadduu inoo saxan yahay automatic waxaa aragtaa redirect inuu siiyey laakiin qaab aan la dareemin. way marka haddaan xaggan aan refresh idhaahno waxaa noo soo galay file saddexaad, laakiin waa inaan ka helnaa passwordka iyo usernamekan raadinayna. yes waan helnay oo waa kaas samlag@gmail.com iyo 1 2 3 4 5 6. marka waa very important weeye filekan yar wuu anfacay wadii soo diri doona hadaa la karigo. marka phishing site saasaad ku samaysan kartaa. uma baahnid inaad kan oo kale meterka oo kale iyo dee facebook oo qura isticmaasho, laakiin waxyaabaha kalena waad qiyaas qaadan kartaa si ay u shaqeynayaan. dadna waxaan samayn karnaa imika siaan ku helno oo kale kan oo kale waxaan sameynaya xaggaas hadan forward slash idhaahdo aan doonayo inaan markaa ogaado waxa ii soo galay shabakadeeda. dee wuxuu phishingku waa iska kalluun moogta, waxa ii soo galay halkaasaan iskaga dhufan karaa deedna waan ogaan karaa halkaas aniga websiteki aan
aan file managerka gelin ayaan xaggan ku ogaan karaa. Imika waa kan 1234 waa kan passwordkii, emailkana waa kaas. Marka saasaan ku sameynay phishing. Imika haddaan qof u dirno email ugu dirno hawadu ku shaqeynayaa, dee waan ka kalluumaysan karnaa. Waxaan doonaya halkaa ku joojiyo casharkan phishingka. Waxaan maleynayaa haddii aad intaa fahanteen, idinka ayaa inta kalena iska sii wadan karaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.